ay tahay 25 bisha December sanadka 2018 waxaa PDRC oo garow ku taala isugu yimid murashaxiin gaaraya 24 murashax oo madaxweyne sanadka 2019 bisha January waxaanu ku heshiinay dhammaantay oo isku waafaqsanahay nooc walba oo musuqmaasuqa oo Puntland ka jira inaanu la dagaalano si wada jir ah oo dalka musuqmaasuqa ragaadiyay aanu ka noqono dadkii tirtiri lahaa Ilaahay hadduu yiraahdo waxaa noo labaysa isbedel wada jir ah oo wax ku ool ah dadka yaga iyo dalka yaga Puntland inaanu ka samayno si wada jir ah iyo si kaliya intaba inaanu u qabanno waxaanu kala isku raacnay wax alla wixii faragelin ah inay aanu ka digayno doorashadu si ay ugu dhacdo si hufnaana oo daahfuraana oo cadaalad ah oo run ah say ugu dhacdo wax alla wixii mugdi gelinaya iyo wax alla wixii interruption ah in ay ka madax banaanaato waxaanu kale oo aanu iyadana isla ogolaanay platform debateska ama meelaha dadka bulshada rayidka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashaxiinta mujtamacuna uu su'aalo weydiiyo dadka murashaxiinta ah oo dhan ama qaarkood wixii hadba ka qayb gali kara barnaamijka waanu soo dhaweynaynaa waana dhiiri gelinaynaa waana isla ogolaanay waxaanu ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada ina ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalad ah oo hufan oo daahfuran oo wada shaqeyn leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin su'aalo iyo jawaabana ma jiraan waa mahadsantihiin walaalayaal